مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو مقعيب بلا ومضنا معبودك واماني يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو مقعيب بلا ومضنا معبودك واماني يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا مسكين يتاجر بشيل لمسوب إسلامكم مدوب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مسكين يتاجر بشيل لمسوب إسلامكم مدوب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا daawadayaal sida aad arkaysaan waxa aan joogaa masaajidka Assalaam oo maanta ay ku beegan tahay maalintii ugu horeysay ee masaajidka laga afurayo muslimiin fara badan oo ay u badan tahay Soomaalidu ayaa haatan goobta ku sugan sida aad daawanaysaanba eedanka ay afka lagu hayaa waxaan jeclahay warbixin kooban in aan maanta idinka soo diyaariyo bal sida muslimiintu ay dareemayeen maalintii ugu horeysay ee soonka bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo oo haatan la afuri doono sida oo kalena masaajidka Assalaam oo ah masaajid ay muslimiintu gacanta ku hayaan gaar ahaan Soomaalidu isla mas'uuliyiinta ayaan weydiin doonaa bal masaajidka iyo wixii ay ka codsanayaan ummadda muslimiinta ama guud ahaan Soomaalida ee degan magaalada Ottawa waan la wadaagi doonaa qadar daqiiqada kadib saan hore u sheegay haatan waxaan la taaganahay mas'uul kamid mas'uulka masaajidka Assalaam mosque ee ku yaala magaalada Ottawa oo haatan joogna afurkii ummadda muslimiinta guud ahaan ay halkan ka afurayaan masaajidka Assalaam san tilmaamay uu afuriyo muslimiin fara badan oo ay Soomaalidu u badan tahay waxaan haatan joogaa mas'uul kamid mas'uuliyiinta masaajidka Assalaam oo Ali oo Sheekh Ali oo garabkayga midig taagan balan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo TV-ga iyo runtii dareenka maanta bisha barakeysan Ramadaan iyo afurka ay sameeyaan ku soo dhaw Ali bismillaah assalaamu calaykum waxaan horta taaniyad u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caalamka waxaan leenahay ku ciida macni ku sooma farxad waa bish ugu barakada badan bilaha islaamka waa bish Ilaahay quraanka soo dajiyay waa bish Ilaahay oo sheegtay inuu asaga leeyahay cibaadada uu sameeyo adoonka oo tahay the only cibaado Ilaahay oo asaga qaas u ah uu leeyahay marka waa bil farxad la waa bish Ilaahay quraanka soo dajiyay waa ku faraxsanahay in maaragtay ummadeena muslimiinta aan meel ku wada afurno intaas oo dad oo Soomaaliyeed aan afurno aad ayaan ugu faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu maaragtay oo naga aqbalo oo naga dhigo kuwa maaragtay ummadda waxtara islaamkan waxtara diintan waxtara waxaan kaloo u mahad celinayaa wadaadkii Allah oo naxariisto Sheekh Maxamed Rashaad Maxamed Isxaaq oo maaragtay markaskan aasay Ilaahay jannada ka waraabiyo ummadda wuxuu uga tago Soomaalida wax maaragtay lagu faano maantay ama wax wanaag iyo sharaf u ah waa meesha kale Soomaalida haysato waa meesha kale maanta sharaf ku leedahay magac ku leedahay ay imaato ay wax dan kasta leedahay ku qabsato marka waa markas weyn wax kasta uu leeyahay wax kasta كمبليدي ويهين مركي إلهي أين مهداس الله بطي وذات كاسنا وحن لنا إلهي سبحانه وتعالى ونحرسته وسوركسان علي runtii mid fara badan oo Soomaalidu badan tahay ayad afurisan afurka yaa inga caawiya masaajidka Soomaaliya iyo runtii dadka ku soo tukada masaajidka mise meel kale macluumaad ka hesha
بسم الله والله runtii Afrika waxa naga caafiya dadka muslimiinta masaajidka soo tukada yaani meel kale oo caawin gooni aan ka helna ma jirto masaajidka ayaana bixi jiray wixii maaragtay sanadan ka horeeyay marka masaajidka waxa laga cishta jaaratu balki statuskii marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala bishan fadligeed inuu Ilaahay noo soo celiyo yaani qeyrkana ma joojinayno intii maaragtay nafta iyo karaanka inagu jirto iyo intii Ilaahay subhanahu wa ta'ala maaragtay meeshan maaragtay sidan way tahay oo masaajidku masaajid yahay qeyrka وصعنا إن شاء الله تعالى حتى هدي أمد ماركتي يسكتكتي ترى هذا مساجد كنا وحقبنا وقبكران oo ay maaragtay u faa'iideeyaan oo ay maaragtay u doonayd gareeyaan because Soomaalidu waxay yani yaab ku leeyihiin ayaga ayaa masaajid kasta dhisa laakiin masaajidkooda run ahaantii ma dhisaan mana caawiyaan waxaan u sheegayaa inay maaragtay arintaas ay iska bedelaan oo masaajidkooda ay ku dhistaan caawiyaan oo because meesha kale ay leeyihiin ku faanin karaan masaajidkan waa beyd Ilaahay horta laakiin meesha maanta magacooda oo masaajidka Soomaalida loo yaqaan waa kana laakiin waxaan unfortunate waxaan anna ku fiican inaan meel kala dhisno laakiin meeshana aan marnaba ka warhaynin taasna waxa waa cilad ummadda Soomaali meel kasta ay joogto ay haysato waxaana leeyahay masaajidkiina waaye taageera wax kasta oo awoodin ku taageera waana mahadsantiin وسوركسن على كل وصل الله مدنا مركل عشانيو أنا عشرة بلامتين عندنا قدر كودي دورة بس مساجك يرنتي عشرة وصعته أنا أدون ما استعدنا كجماعة إلنيا داود الولي وحن خصوصا مساجك السلام ورنتي أفريقيا ترسيد داون السلام بالله أفرايو مدي مسلمين تجارنا مدة الصومالية ده مش هلكن كأفريقيا صاد أركسان وقت أفريقيا هاتنا رنتي سوق بجو سوق الجلية صلاة دي لون ديار جروبيين صلاة دي مغرب لصوت كذا كل بعد صلاة المغرب أنا صور الله مدنا جوبل كنا يدينا عبد حتى أي iyadoo laga afura oo runtii cashada lagu soo diyaariyay marka goobtaasan gali doona bal waxaan jecelahay mar kale inaan ila wadaagi doono bal sida cashada u socoto iyo sida guud ahaanba ummadda muslimiinta ee goobta ka afuraysa laftoodu ay ka dareen celinayaan maalintii ugu horeysay ee soonka bisha barakeysan ee Ramadaan san aba aydii muuqata waxa haatan la qaybinaya cuntadii ama cashadii inagoo ku soo gudubnay afurkii imikana waa cashadii markii salaada laga soo baxay mas'uuliyiinta masaajidka ka shaqeysa masaajidka Asalaam Mosque ayaa imika cashadii u qaybinaya ummadda runtii maanta dhan afurnay amiinaas waxaan jeedaa soomanay cashadii imika u diyaar garoobay cashaynaya sida dadkasan cashada qaadanaya masaajidka Asalaam sidaas ayaa u sarfigaya ama runtii u caawiya dadka muslimiinta hadaba kulay message-ka uu gudbiyay Ali inuu inga baahan yahay idinka ahaan caawinta qof kasta oo muslim ah ama Soomaali ah inuu walaalihiisa kala afuriyo ayay tahay haboon tahay idaacada sikasiyo iyo runtii TV-ga Ciga Studio waxa ay wada jir waduubayaan ama ay joogaan goobta ay cashada ka socoto ee masaajidka Asalaam Mosque ku yaala magaalada Ottawa ee muslimiinta ay u badan tahay kusoo tukadaan halkan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan masaajidkan waan la wadaagi doonaa warbixin kooban iyo runtii مسؤولين مساجدك ويجوا كدرين علين دونا أرنتاسي ومركان runtii ay cashada ka soo ababaxaan
مسؤولينta masaajidka ayuu kamid yahay runtii maalintii ugu horeysay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan joognaa hadda waa la casheynaya afurkii waa laga soo gudbay salaadii maghribna waa la soo tukaday cali sida aad arkaysid runtii waxa sarf greensan baad cuntada siinayay ummadii maanta oo Soomaaliyeed ee masaajidka asalaam timid bal ka waran dareenkaaga iyo runtii maanta sida u aragto wallahi waa ku faraxsanahay aad iyo aad intaas oo ummada muslimiina Soomaaliyeed inay ka afuraan masaajidka oo maalin kasta imaadaan iftaarkana waxaan sameeynaa maalin kasta oo yaraan waxaan noo imaato 150 marka aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaadano farxadda yaani aan ku soo dhaweyno ummadeena muslimiinta ee degan North America khaasatan magaalada Ottawa inay nala afuraan masaajidka imaadaan ka afuraan inaan afurino aad ayaan ugu faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ugu dhawaanaynaa asaga ayaana weydiisanaynaa inuu naga abaal mariyo yaani nooguna naxariisto ehelkeena carruurteena familkeena maaragta ayakana maaragta cunto guri lagu kariyay cunaan oo aysan maaragta u baahan maqaayad inay aadaan wanaagsan cali runtii ummad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ka afuraysa maxaad jeclaan lahayd Soomaalidu inay ka caawiyaan masaajidka ama dadka caawinaysan afurnaysaan waxaan jeclanahay inay naga caawiyaan ummadeena Soomaalida inay afurka naga caawiyaan ay dooneed gareeyaan oo ay bixiyaan yaani lacag maaragtay si aan because meelan ku karsanaan haysanaa oo ay ummadu yaani ugu afurto taasaan jeclanahay inay naga caawiyaan ay afurka naga caawiyaan maalintii waxaan nooga baxda ugu yaraan $500 ma in la ka caawiyaan taas jeclanahay weydiisanayna يعني ummadda Soomaaliyeed inay naga caawiyaan meel kasta ay joogaan waan ku faraxsanahay inaan afurino haddii aan weyno waxna caawiyo insha Allah ta'ala annaka ayaa bixinayna afurka laakiin aad ayaan u jeclaalahay sanadkan in la caawiyo waa sanadkii 10aad oo aan wadno afurintaan ummadda Soomaalida aan afurinayn wanaagsan cali su'aasha ugu dambaysa kulli iyadoo ashadii lagu jiro haddii qofku doonayo inuu masaajidka cunto keeno ama runtii lacag qof ku bixiyo Soomaalida uu afuriyo ummadda muslimiinta xagga lagu soo hagaajinaya macluumaad information waxaana lagu soo hagaaji karaa masjid asalaam hatta waxaana lagu soo hagaaji karaa website-ka masaajidka oo www.assalam.com oo telefoonka masaajidka waxa 61373939939 xafiiskana lagu soo hagaaji karaa marka qofkii doono wuxuu nagala soo xiriiri karaa website-keena iyo telefoonka masaajidka cid walba cidii doontana waxay keeni kartaa xafiiska wixii donation ugu tala gashay ummadda Soomaalida aan afurinayna inay ka qayb qaataan waana ku mahadsan yihiin waan uga mahad celinaynaa especially waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha kariya ee maalinkaas jikada ku jira ee last 10 years karinayay in Ilaahay awlaadooda u xifdiyo ayakana xifdiyo because raashinka waxa lagu kariyaa masaajid raashin aan dibadda ka soo iibina maaha waxaan ku karsanaa masaajidka waa soo iibinaa soo ceerina waxaan ku karinaa jikada masaajidka wanaagsan aad iyo aad baan kaga mahadcelinaya runtii caawinayay cunto qaybinta iyo runtii soo dhaweynta muslimiinta oo Idris bal ka waran Ramadaan maalintii ugu horeysay weyn la afriyo wallahi horta Ramadaan kariim kullu caam wa antum bikhair dhamaantiin waxaan leenahay Ilaahay nooga dhigo Ramadaan aad u wanaagsan waad arkaysaan sanad walba inta meesha joogta iyo in ka badan iyaan afurinaa sanad walba حتى مررك قاركود واحد عدينا إنه ترى إن أفرك سحورته أنه سينو مركا وحن كبرينا إلهي إنه سنة كسنة كيس إنه قارسية برواقية خير أنت والعمر جايو جوجنا أن نصيودنا هوشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داود الواحد تاجنا جودي كل وانوسو قد بدنا وحي معلومات قف كسته ومسلمنا ورنتي شعلنا أفريقيا مسلمين كلام مساجد كالسلام أنت كل دواد لا بقول مسلمين أياك أفرو الصومالي وبدن تهاي مالو والباي أفريان سلا وينوش شجع مسلمين مساجد كمركب عن شعلها إد كسته ومسلمنا ورشعل إني عاوز بشاب بركيسن خير يأشر كشخص ستين يقصوا هجاج مساجد كالسلام تماتو وينو يبرمشة كله أي عن مساجد كلام قال وتوتك الدونا ديله إلى الله ودر نقسم ونيجا محمد أحمد وعند الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأمان يا رمضان. يا رمضان.
مسكين يتاجر بشيل لمسوب إسلام كم دوبن يا رمضان مسكين يتاجر بشيل لمسوب إسلام كم دوبن يا رمضان